boqortooyada sagaalka eylana waxa ay ka mid noqonaysaa marka boqortooyooyinka taariikhdooda la jaanduugay ama taariikhdooda la duugayba dheh yani waxaa jiraan boqortooyooyin taariikhdoodii aan la soo bandhigin iyo kuwa taariikhdoodii la soo bandhigo laakiin la jaanduugo saas daraaddeeda eylo taariikhda ay ku leedahay geeska Afrika iyo caalamka oo dhan caalamku uu ka hadlay oo waxaa jiraan kitaabo waaweyn oo sida hadda kitaab mu'arriqiinta carabeed ay uga hadleen jirta taariikhda eylo kuwana wayna soo gaareen kuwana meelana loogu sheegay kuwana waxa ay ka mid yihiin buwaagta ama taariikhda ama kutubada ay ku qoriyeen oo aan sugayno inaan helno saas daraaddeed waxaa kaaga mid ah marka ama kala tusaale Soomaaliya oo kale hadda Soomaaliya dadka joogo dhan marka la yiraahdo eylo waa daday dhashay iyo daday soo naas nuujisay Soomaaliya dadka joogo dhan marka loo fiiriyo waa daday dhashay iyo daday soo naas saas daraaddeed taariikhdeedii waa la weeciyay marka meelo kale loo weeciyay meelaha kale loo weeciyay waxa ka mid noqonayso tusaale waxaa jira boqor ka mid ahaa boqortooyadii eylo soo maray oo magaciisaba aan la sheegin horta boqorrada Soomaaliya markaan joogno boqortooyooyinka soo maray reer eylo magacyadoodii meel lagu sheegay ama buug ay ku qoran tahay lama hayo xitaa buugta kale waxaa arkaysaa sagaashameeyadii maxaa ahaa 1940 50 iyo 60 iyo 70 wixii dhacay in buugta Soomaaliyeed muqarrarka oo waxbarashada wasaaradda waxbarashada ay ku dhigto dad waxa jiraan dad mar dhow oo ahaaya jira oo dalkan muqarrarkana lagu dhigay taariikhdooda laakiin eylo oo asalka ahayd oo dadka dhulka loogu yimid ah geeska Afrika oo dhan ba dadka loogu yimid ah taariikhdoodii waa la qariyay manhajna laguma dhigo wasaaradda waxbarashada wasaaradda marka waxa la dhahaa inta badan waxa lagu daray jireer yani ereyga jareer ama kuwa qowmiyadaha jareerta ah inay sameysmaan maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeysay burburkii eylo faa'iiday ayagu beelaha jareerta ee Soomaaliya joogto dhan badankooda marka laba laga reebo hal iyo laba marka laga reebo inta kale waa eylo beelaha jareerta inta kale waa eylo tusaale boqorka la yiraahdo boqorgeed Shambu waa la yiraahdaa Abaabo waa la yiraahdaa ama Abaan waa la yiraahdaa boqorgeedii Abaa taariikhdiisii manhaj ay ku qoran tahay iyo buug ay ku qoran tahay lama hayo oo Soomaali ah taariikhdiisa la istiilaa dad badan geeska Afrika oo dhan oo ka talin jiray oo haysan jiray waa nin maxuu ahaa wadankan geeska dhulkan u dhashay dhulkan dhan ka talin jiray waa taariikhdiisii waa la sagaashameeyadii iyo afartamaadkii iyo kontomaadkii iyo lixdamaadkii nin Talyaani la dagaalamay ama muqarrarka lagu dhigaamay muqarrarka wasaaradda waxbarashada nin kontomaadkii Talyaani ama maxuu ahaa Faransiis ama Ingiriis la dagaalamay lagu dhigaya maxaa keenay